hooyada dhashay Fahmi Fiicani oo baraha bulshada caanka ah isla markaana muddooyinkii ugu dambeysay ay la soo diristay xaalado murugo iyo sidoo kale walbahaar isbiirsaday kadib markii baraha bulshada si weyn loogu faafiyey muuqaal galmo ah oo qaaban oo uu ka duubay wiil dhalinyaro ah kaasi oo reer Muqdisho ah. Hooyada dhashay Fahmi Fiicani oo qayladhaan ka soo saartay arrinkan ayaa mar kale walaac iyo welwel muujisay, waxaana ay sheegtay in habeen iyo maalin aysan ka hurdin fiidiyowyada iyo muuqaalada argagax iyo anshax-xumada leh oo gabadheedu laga sameeyey ee baraha bulshada qabsaday. Waxaa intaasi ay ku dartay in ay iyadu soo gaareen warar sheegaya in ehelka wiilka gabadheeda kula kacay falkan xadgudubka ee anshax darrada ah in ay qorsheynayaan in wiilkooda ay ka saaraan magaalada Muqdisho isla markaana ay ula cararaan dalka dibaddiisa. Waxa ay tiri, ninka gabadheyda iyo aniga sidaan nabaday, waxaan maqlay in loo diri rabo dalka dibaddiisa. Cadaalad ma haysano, wax i caabiya ma haysta bay tiri. Hooyadan oo lagu magacaabo Xaawi Ibraahim oo ah hooyadii dhashay Fahmi Fiicani oo sii hadleysa ayaa tiri, gabadheyda xilligaasi guur ay diyaar u ahayd, balse hadda waxay ku sugan tahay xaalad ay adag tahay in la cabiro maadaama ehelkii iyo reerkii isu diyaarinayay una tababushaystay in ay guursadaan ayna gabadheyda la aqalgalaan ay gebi ahaanba ka baaqsadeen kuna gacan seereen guurka gabadheyda kadib markii baraha bulshada uu qabsaday muuqaalka anshaxa darrada ee gabadheyda laga diyaariyey. Waxa ay sheegtay in 6 maalmood ee Soomaaliya laga shaqeeyo in maalinba maalinta ka dambeysa ay gaadho ama ay booqato xarumaha cadaaladda ee magaalada Muqdisho, balse aysan wax natiijo ah aysan ka helin maadaama ay ku adkaatay in ay cadaalad u hesho gabadheeda. Waxaa intaasi usii dheer oo ay ka shanqarisay in gabadheeda dad Soomaaliyeed imika ay gacanta ugu jirto oo ay la nooshahay islamarkaana quud iyo meel ay iyadu hurdo siiyo. Hase yeeshee waxa ay sheegtay in gabadheeda ay qabto xanuuno kala duwan oo isugu jira gaas, neef iyo xanuuno badan oo isbiirsaday oo dhaxal siiyey murugo iyo welwel isdaba joog ah. Waxaana ay sheegtay in ay ku kacaan xanuunadaasi deetana ay doorbido in ay isticmaasho dawooyin, xaaladooduna ay tahay mid sidaasi ah. Hooyo Xaawa Cusmaan oo iyadu arrinkan si aada uga shanqarisay ayaa saacadihii aynu kasoo gudubnay dadka baraha bulshada ka codsatay in ay soo gaarsiiyaan caawimaad iyo taakuleyn iyo ciddii wax ka qaban karta arrinkan maadaama ay tahay arrin aynan ummadda markaasi ku fiirsan karin. Waxa ay sheegtay in gabadheeda aysan haysan ehel iyo qaraabo iyo arxan dowladda ugu jira isla mar ahaantaana ku firfircoon howlahan oo cadaalad u heli karayo. Sidaa daraaddeed waxa ay sheegtay in ay duur cidlaha gabadheeda imika ay ku sugan tahay. Dhinaca kale waxa ay sheegtay in gabadheeda sumcaddeeda si aada loo galaaftay isla mar ahaantaana iyadu xitaa nolosheeda imika ay tahay mid quus ka taagan maadaama reerkii farxadda, bashbashta iyo barwaaqada iyo baraaraha ku jiray ay imika dhexda kaga jiraan murugo iyo badweyn walbahaar iyo tiraanye isugu jira maadaama gabadhii indhaha aragga iyo sidoo kale tiirka u ahayd ehelkaasi oo ay eeganayeen imika la fadeexeeyey isla mar ahaantana aysan jirin in mustaqbal ay hesho. Waxa ay sheegtay in mustaqbal seega gabadheeda har iyo habeen aynan ku hurdin, ayna dooneyso in ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah in ay ka warqabaan xaaladda reerkaasi dhaxal siisay murugada isdaba jooga iyo xaaladan xigxigta ee muddooyinka ugu dambeeya ay iyagu la kulmayeen. Waadna la socotaan, waadna dareemi kartaan, kolley waa hooyo Soomaaliyeed, murugteeda iyo walbahaarkeedana waa wax aanu markaasi run ahaantii la qiimeyn karin lana markaasi eegan karin maadaama ay aada u adag tahay oo ay markaasi aynan jirin abtiyaal, adeeryaal iyo dad markaasi hooyadaasi iyo gabadheeda cadaalad u raadiyo. Waxaana dadku ay wax markaasi weyn intooda badan ay si weyn uga hadlayeen arrintan muddooyinka ugu dambeeyay maadaama Fahmi qudheedu ay sheegtay in cabitaan loogu daray sun amaba daawo sidaasina looga faa'iidaystay. Qaar ka mid a dadka baraha bulshada isticmaalo
ayaa intooda badan aada ugu maadsaday hadallada hooyadan kasoo burqanaya, waxaana intooda badan ay eedda dusha uga tuureen gabadheeda oo ay sheegeen in khaladkaasi iyadu ay gashay, falkaasina iyadu ay gacanteeda ku geysatay, raallina ay ka ahayd. halka dadka qaarna ay dareemayeen murugta hooyadan, maadaama hooyo aanan lala simi karin qof kale, isla mar ahaantana ay dareemi karayso murugadaasi. qaar ka mid a dadka ayaa iyagu intooda badan waxa ay ku sifeeyeen arrintan oo ay sheegeen in qabyaaladda iyo sidoo kale waxyaabaha la halmaale ee Soomaaliya ka taagan inay u wacan tahay, inay adag tahay in loo helo kiisaska noocan oo kale natiijo wax ku ool ah iyo sidoo kale cadaalad. waxaana taasi ay sheegtay in aanan markaasi maalinka qiyaamo landheeranimada iyo qabyaaladda lagu faano aynan wax u taraynin ummadda. sidoo kale waxa ay sheegtay dadka kalena intooda badan waxa ay ka warbixinayeen bal sida gabadhani u gaadhay guri nin uu ku jiro, sidoo kalena waxaa ku dhiiriyey arrintaasi, taasi oo ay sheegeen inay ahayd mid iyadu ay ugu wacneed dhibaatada ay arrinkaasi inta badan soo gaadhay. waxaan dadka intooda badan ay kula talinayeen in aynan hooyadan dib dambe social media uga soo muuqan, maadaama ay u muuqato in ay sii bunbuuninayso fadeexadda iyo sidoo kale ceybta gabadheeda soo gaadhay, sidaasina gabadheeda ay mustaqbalkeeda ku burburinayso. halka dadka qaar ay arrinkan ku cabireen marxaladda imika bulshada Soomaaliyeed ay la kowsanayso, ama marxaladda bulshada Soomaaliyeed imika ay taagan tahay, iyadoo aynu ka warhayno in dhibaatooyin aada u badan uuna dhexalsiiyey, haddii ay noqon lahayd jahliga burburka waddankeeni soo gaadhay, iyo sidoo kale xaaladda markaasi aqoon darrada ka jirta dalkeena. waana waxyaabihii ugu waaweynaa ee baraha bulshadu dadku ay kaga hadlayeen. muuqaalkan waan rajeynayaa in aad subscribe inoo saari doonto, sidoo kale lagaree muuqaalkan la wadaag asxaabtaada. waxaan ku rajeynaynaa in muuqaalkan macluumaad badan oo amaba aan ku iftiimino ay noqon doonaan kuwo aynu talo iyo wacyi aynu ugu raadino ummadda Soomaaliyeed. alla subxaanahu watacaala xaggiisa iyo cadaalad taala, wax waliba waxaa ka wanaagsan in qofka uu alla tala saarto, maadaama adduunka maanta aynu joogno ay adag tahay in qof danyara oo maskiin ah oo uusan qofna ka dambeyn in uu helo cadaalad iyo sidoo kale arrin wanaagsan. waana waxyaabaha ugu badan ee bulshadeenna ay la kulmaysay muddooyinkii ugu dambeeyey. muuqaalka intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa.